siyaasi Maxamed Cumar Jare oo ka mid ah siyaasiyiinta daada yar leh gobolka Awdal ayaa maanta waxa uu si rasmi ah ugu wareejiyay waraaqaha mid noqoshada xildhibaannimo ee golaha deegaanka ee degmada Baki. Waxa uu si rasmi ah ugu wareejiyay gudoomiyaha gobolka Awdal ee xisbul xaakimka talada dalka haya ee Kulmiye, waxaana si rasmi ah looga wareegay warqadahaasi. intaa kadib siyaasi Maxamed Cumar Jare oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu fariin u diray taageerayaashiisa waxaana uu mahad celiyay mas'uuliyiinta xisbul xaakimka talada dalka haya ee Kulmiye. wuxuuna yidhi Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. anigoo ah Maxamed Cumar Cismaan Jare oo sharaxan golaha deegaanka degmada Baki, waxa maanta si rasmi ah waraaqaha shuruudaha iga gudoomay xisbil xaakimka anigoo ah musharax ka tartami doona golaha deegaanka ee degmada Baki, isla markaana ka tartami doona xisbiga Kulmiye. waxaan saaka si rasmi ah xisbigu iga gudoomay waraaqihii codsiga. waxaan halkan ka cadeynayaa inaanan isku soo sharxin inaan shaqo tago, balse waxaan isku soo sharxay inaan u shaqeeyo bulshada. dhammaanba waxaan ka codsanayaa taageerayaasheeda ku sugan degmada Baki inay u diyaar garoobaan inay codka i siiyaan insha Allah taala. waa Shucayb Maxamed Kaan Shucayb.